taariikhda fanaanka Soomaaliyeed ee Keenan waa fanaan raabar ah magaciisa oo saddexnina waa Keenan Cabdi Warsame wuxuu dhashay 16 bishii afraad sanadkii 1978 da'diisuna waa 46 sano jir wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhalashadiisa labaadna waa Kanadiyaan oo waa Soomaali Kanadiyaan waalidkiisa ayaana u qaxay Canada markii ay dagaaladii sokeeye ka dhaceen Soomaaliya sanadkii 1991 Keenan halkaas ayuu ku barbaaray waxbarashadiisana ku soo qaatay ilaa heer jaamacadeed Keenan fanka wuxuu ku soo biiray sanadkii 2000 waana fanaan ka mid ah fanaaniinta ugu caansan adduunka wuxuuna ku soo caanbaxay heestii ay dunida ku baratay ee Waving Flag heestaasi oo ay shirkadda Coca-Cola u dooratay in lagu furo koobkii adduunka ee sanadkii 2010 lagu qabtay waddanka South Africa Keenan wuxuu ka soo jeedaa qoys lagu yaqaan fanka Soomaalida awgiis wuxuu ahaa gabyac caan ah oo geeyiga Soomaalida laga yaqaan eedadiisna waxay ahayd Xaliimo Khaliif Magool Keenan markii uu 13 jir ah wuxuu yimid dalka Mareykanka Keenan waxa la dhashay wiil iyo gabadhu waa ay ka yartahay wiilkuna waa uu ka weyn yahay waxaana la kala yiraahdaa gabadha Sagal wiilkana Liibaan Keenan markii uu yimid dalka Mareykanka wuxuu ku noolaa 6 bilood kadibna wuxuu kaga hayaamay waddanka Canada gaar ahaan magaalada Toronto halkaas oo ilaa hadda qoyskiisa ku nool yihiin Keenan wuxuu bilaabay barashada luqadda Ingiriiska asagoo badanaa dhageysan jiray heesaha hip hopka ah Keenan wuxuu guursaday oo ay nolosha wadaageen gabar la yiraahdo Deeqa gabadhaasina waxay u dhashay 2 wiil waxayna kala dhasheen sanadkii 2005 iyo 2007 Keenan iyo Deeqa waxay kala tageen sanadkii 2006 Keenan mar ayaa fursad loo siiyay inuu khudbad gaaban ka jeediyo xarunta qaramada midoobay arintaasina waxa ka caawiyay ninka reer Canada ee Soligai khudbadaasi oo taariikhda gashay wuxuu Keenan ku sheegay in UN ku fashilmeen wax ka qabashada arrimaha Soomaaliya